بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما أنت أو يبشر تهاي صدق يلا بعتن فبراير قد ذا باره دق جاه باشا قرمت وحيال كنا نقرب تدرينا شن يتوبن بويدود ونمو خلا درينا دقة ماذا خصه خاصية باللي قبل لي وأنت بدن عبارة حقوق جيد وكل عي ويا أنت بدن حق السرية وحي باللي قبل لي حتى كسر الريا وي دانتها حقا هوسة أنت ود حيسا بور تقال حلينا إلا قمر لك جارو ويلوك عبارة آذ وكل عضي شن يتوبن بويدود بانو درينا نمو خلا درينا بريسير عنقبض قبلي قلح إن عناية بارجو ورت محطنا يقمر شيء تبنك بيوزنا قلبته وضع بحيان وحكوا حق هذه الله يلاذو بريتو إلا شن بقول قويس أو يجنا الراشين كي الله دريتونا ودمان تودي يكون الديارسن أو بريتا بحدونا بيهنا قلبته أيام درينا القمر لحدود يكون إما كي بحيان أو ولدان بيكم غين بودي أنتي كانوا ينود ديارسين كوبي اللي باتم بودو ويدمان بودو raashinku waa 500 oo qoys wixii tafaasiilada dambana waxay siin doona gudoomiyaha gudida gurmid mubaarak muuse faarax ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam alxamdulillah ilaahay baa mahad leh waa wajigii koobaad ee abaarta ama gacanka geysiga la sameeyay insha Allah إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى مدر خير قبا وإن عام يلا إلههم بس سبحانه وتعالى إن جشر كرا أوارته إلهي وحن برنا إن لهي نجشره إلهي نججوي أنت وحن راعينا يا وحن ود عيننا عيد كستا أو جعنك جيستي أو بدن ولا لها قربها تشوجة أما تشاليدة قبل كهود الدبدة أو يسكح القانتي إن أي صاور ريان lacagtan iyadoo ilaa hadda uu socdo lacag ururinta ay socoto gurmadka ka qaybgalkiisa uu socdo abaarta gacan wanaagsan ay ka geysteen ragooda iyo dumarkooduba aad iyo aad baan u bogaadinaynaa oo mahadinaynaa miisaanka xasanaadka ilaahay ha idin ku daro dambigiina Allah ku dhaafo muraadkiina macsi lahayn Allah idin ku siiyo cid kasta oo duca gaarana farato rag leh oo dumar lena ilaahay waxaan u baryaynaa halka uu ka dhiboon yahay dhibta Allah ka saaro amiin hawsha iyo waxa ku furanna Allah ka fududeeyo amiin cidii aan sharci hayninna sharciga Allah ku siiyo cidii hawl kale markaasi u niyootayna hawsha Allah u aqbalo amiin waa walaalihiin waa sadaqa jaariya waxaanu cid kasto aan ka qayb galina aanu ku baraarujinayna ama magaalada ama wadanka ha noqoto ama dibadiisa ha noqotee inay iyaguna ka qayb qaataan si fiican oo aad u wanaagsan bay noogu socotaa insha Allah imika biyihii baanu diranaa wajigii koobaad waxaanu ku xigsiinayna hadii Ilaahay raali ka noqdo raashinkii ayaanu ku xigsiinaynaa haddana wixii kale inoo soo hadha ama wixii kale soo dhaca kolba sidii wax aynu u gaarsiin karno ayaynu u gaarsiinaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa idinka iyo annaga baynu nagu xiltiro oo Ilaahay nagu asturo aad iyo aad baan idin bogaadinaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaalaheena gudida afkarad oo hawsha runtii nala riixaya oo wax nagala qabanaya aad iyo aad baan iyagana u bogaadinaynaa Sheekh Abdul Khaliq iyo Dr. Saciid Dahar waan ku soo dhaweynayaa si uu Saciidna markaas kelmadiisa u yiraahdo Abdul Khaliqna kelmadiisa u yiraahdo markaas Saciid baan ku soo dhaweynayaa maanta waa maalin actually ruuxaantii qalbiga diiranaysa sida ay u dadaaleen dadka reer Hawd oo gaar ahaan kuwa qurbaha jooga oo tabarucan soo dhiibay tan waa tii ugu horeysay tii dambayso noqon mayso hawshana waa la sii wadayaa fariina waanu dirayaa maanta qolada qurbaha jooga hawshiina ma dhamaan aniga iyo nin Dr. Maxamed Warsame waan idinku soo soconaa bisha March 5teedaanu idin imanaynaa hawshaanu idinku imanayna hadii Allah yiraahdo waxa ka mid ah tan gurmadkan aanu soconaa hawsheeda abaaraha ku xidhan iyo tii diiwaangelinta oo aan gadaal idinka raacin doono insha Allah marka saasi ay ballanteenu noo tahay qolada qurba joogow aniguna kii loo qaybiyay qurba jooga ayaan ahaa qolada afkarad marka deega gaabin maysaan hawsha way la wada doontaan insha Allah lacagtana waa soo badin doontaan waana mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh